war qoraal ah oo ka soo baxay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa si cad u sheegay inaysan taageeri doonin muddo kordhintii 2 sano ee baarlamaanka Soomaaliya ugu dareen isniintii hay-adaha dowladda. Waxaa si isdaba joog ah caalamku ugu adkeysanayaan inay muhiim ugu tahay xasiloonida, barwaaqada iyo dowladnimada Soomaaliya si taas loo gaarana ay madaxda dowladda federaalka iyo hoggaanka dowlad goboleedyada heshiis ka gaaraan khilaafka dhexdooda ah. Xogayuhu wuxuu hoosta ka xariiqay in Mareykanku uu kasoo horjeedo 2 sano ee farmaajo uu ku kordhisaday muddo xileedka si xukunku uu sii joogo haddii uusan taageero ka helin daneeyayaasha caalamka ee Soomaaliya dhaqaalaha siiya. Qaraarka lagu kordhiyey muddada dowladda federaalka ayaa dhabaha u sii xaareysa warwarka guuldarre ee sii socoshada nabadda iyo xasiloonida dalka. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay dib ugu laabtaan miiska wadahadalka isla markaasna ay isla meel dhigaan waddo walba oo burburka ka hortagi karta, ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Ugu dambeyn, Mareykanka ayaa sheegay in tani haddii aan dheg jalaq loo siinin baaqooda ay ku qasbanaan doonaan in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka laba-geesoodka ee kala dhexeeya Soomaaliya, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku goodiyey inay cunaqabateyn soo rogi doonaan dhinaca socdaalka, diblomaasiyaddana hoos loo dhigi doono iyo in la joojiyo kaalmada ay Soomaaliya siiyaan. Dhinaca kale, dowladda Britain ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadlaysa xaaladda Soomaaliya iyo muddo kordhinta baarlamaanka ay sameeyeen. UK waxay cambaareysay sharcigii golaha shacabka ee maalin ka hor ku ansixiyeen waqti dheeraad ah in la siiyo hay-adaha dowladda iyadoo heshiis wadar ogol ah aan laga helin. Wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda UK ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin muddo kordhinta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ay u sameeyeen hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna ku baaqeen in dib loogu laabto teendhada Afisyooni shirkana halkaasi laga bilaabo. Waxayna ugu baaqeen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada in heshiiskii Sebtembar 17 ay ansixiyaan labada dhinac. Si kastaba, goodintan ka timid dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa kusoo beegmaysa xilli xalay madaxweyne Farmaajo uu saxiixay sharciga jihaynta doorashooyinka heer federaal, taasoo 2 sano xukunka uu ku sii hayn doono. Faa'iise Cabdi Warsame, warbaahinta Nation, magaalada Muqdisho.